السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن ونكسن داوديال كسر وضع قلبنا وركنا ودور كرون TPLF دجالك أسوري سيد إن عاه قبلك عن فرتا حوجة TPLF أيا وها كوجا عن سيرن هذا الكسويري مدوجا أفريقيا قبلك سيتي ولي وها كسعده قلبيت كيسة إلى هذا دجال لسكو فرساري ودحيو سوماليا عن فرتا دجال كسعده قبلك والله مقالة ديزيت warka waxa qayb yar ah ilaa soo jeedinayo saaxiibkay Ilays xooga TPLF falaagada ka soo jeedo gobolka Tigray ayaa waxa dagaal uu kala dhaxaya dawladda Itoobiya ayaa waxa ay ku eedeysay midowga Afrika AU maalmaha kadib markii ururka uu magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria in uu dhaxdhaxaadiyo uu ka noqdo ama uu dhaxdhaxaadiyo dagaalka u dhaxeeyo dawladda iyo xooga TPLF afayeenka jabhadda xoreynta dadka Tigray TPLF Gitadurida ayaa ku eedeeyay AU waa midowga Afrika in ay ka eexatay ama u eexatay dawladda Itoobiya wuxuuna sheegay in aqli darro ay tahay in la filayo in howlgalkan uu shaqeeyo ama ay wada hadal ay ka dhax bilaabaan ururka iyo dawladda Itoobiya waqooyiga Itoobiya waxa hareeyay rabshado tan iyo bishii November ee sanadkii hore markii wasaaraha Abiy Ahmed uu ciidamada u diray gobolka Tigray si ay u afgambiyaan TPLF oo ah xisbiga talada gobolkaasi hayo Abiy Ahmed ayaa sheegay in talaabadaasi uu qaaday kadib markii ciidamadii gobolkaasi ku sugnaa ay weerar ku qaadeen xaryahooda ciidamada TPLF taasina ay jawaab ay ka ahayd in gobolkaasi la weeraro uu ku magacaabay sareynta sharciga guuleystaha abaalmarinta nabadda Nobel Peace Prize 2019 wuxuu ballan qaaday in guul degdeg ah uu ka gaarayo dagaalka uu kula jiro xooga TPLF laakiin dagaalka waxa uu sii jiitamay muddo bilooyin ah taasi oo dhalisay dhibaatooyin bini'aadanimo oo ka dhacay gobolka Tigray halka fallaagadu ay qabsadeen qaybo ka mid ah gobolka deriska la ah Canfarta iyo Ahmaarada Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku doodaya ama uu diiday in wada hadal uu la galo hogaamiyaasha TPLF waxaana uu ka doorbiday in halkaasi uu ku qabsado dagaal waa sida la wada og yahay xooga TPLF ayaa waxa ay dagaalkooda u soo wareejeen dhinaca gobolka Canfarta iyagoo xooga saarayo in halkaasi ay dagaal baani ay ka geystaan waliba ay halkaasi hadda ay ka wadaan xooga TPLF ee TDF ayaa waxa ay doonayaan in ay kala gooyaan wadada u dhaxayso Djibouti iyo Itoobiya halkaasi oo ah marin muhiim ah una soo mara Itoobiya badeecadaha ugu badan ee ka imaado dalka Djibouti dagaalka ka socdo gobolka City ayaa waxa uu galay maalintii lixaad dagaalka ayaa waxa la isku adeegsanayay maalintii shalay hubka noocyadiisa kala duwan isaga oo halkaasi laga soo sheegayo in ciidamada dawlad deegaanka ay guulo aad u waaweyn ay ka gaareen dagaalka ayaa waxa hadda uu ka socdaa meel u dhow amaba 5 kilomitir u jirto caasimada gobolkaasi ee Garbaciise iyaga oo la doonayo in saacadaha soo socdo in ciidamada Liu booliska ay gudaha ay u galaan magaaladaasi ciidamada Canfarta ayaa waxa loo diiday in dhaawacyadooda iyo meedkooda inta ma taqaan in ay qaataan halkaasina waxa ay ku sheegeen in dagaalka ay ka soo qayb galeen qoomiyadaha deriska la ah ama dadka deriska la ah sida Djibouti iyo qayb ka mid ah Soomaalida dagaalka ayaa wali halkaasi ka sii socdo iyagoo labada dhinacba ay guulaha ay kala sheeganayaan balse sida muuqata guushu ay inta badan ay gacanta sare ay leeyihiin ciidamada dawlad deegaanka dagaalyahanada TPLF ayaa waxa ay xalay ay gantaalo waaweyn ee ku garaaceen magaalada Dizet ee ah gobolka Wollo iyaga oo doonayo in halkaasi gacan ku haynteeda ay maamulaan waxa ka dhacay magaalada Dizet habeenadii xalay ahaa
weeraro aad u badan kuwaasi oo weliba ahaa gantaala kor u dhaafayo konton in lagu garaacay magaaladaasi halkaasina uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. magaalada Dizet ayaa hadda waxaa ka socdo barakac aad u badan kaasi oo dadka ay u qaxayaan meelaha duurka hoodka iyaga oo doonayo in halkaasi ay ku nabadgalaan. ciidamada TDF ayaa waxa ay doonayaan in ay guud ahaanba ay maamulaan gobolka Wollo iyaga oo weliba dagaalkana u fidiyay dhanka gobolka Anfarta iyaga oo doonayo in labada gobol ee Xamaarada iyo Anfarta labaduba gacantooda ay ku jirto. daawadayaal waxaa barnaamijka qaybiga ah idin soo jeedinaya qaybaha haray saaxiibkay Ilays soo dhaw. bidano waan mahadsan tahay. haddii aan eegno dhanka iyo Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa si kulul waxa uu uga hadlay dadkii dhawaan lagu dilay deegaanka Kabxanley ee gobolka Hiiraan. dadka la dilay oo ahaa dad beeraley ah isla markaana aan hubaysnayn ayaa waxa uu sheegay Cali Guudlaawe in ay ka dambeyn doonto isla xisaabtan, waxa uuna uga tacsiyeeyay qoysaskii ay ka baxeen. madaxweynaha Hirshabelle waxa uu sidoo kale ka digay in colaadda u dhaxaysa labada beelood ee aanooyinka qabiil isku dilaya ay sii dheeraato taa oo keeni karta buu yidhi dhiig ku daata si maalayacni ah. maamulkiisa Hirshabelle ayuu xusay in ay diyaar u yihiin in uu gogol nabadeed uu kala dhex dhigo dhinacyada ay colaadda ka dhaxayso, isagoo ugu baaqay in wada hadal lagu xalliyo colaadda. Cali Guudlaawe ma uusan sheegin mana uusan soo bandhigin qorshe uu kaga hortegayo dagaal beeleedka laga rabay in uu ciidan kala dhex dhigo maadaama ay yihiin hadda kuwo isku hub urursanaya. dhanka kale waxaa xaalad bini'aadanimo laga soo sheegayaa gobolka Bokool oo ka kooban 5 degmo ayaa laga soo warinayaa in 3 ka mid ah ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo aad u daran, taasi oo ay ugu horeyso degmada Xudur. maamulka gobolka ayaa sheegay in xaaladdu ay marayso meel adag oo u baahan gurmad degdeg ah xilli ay degmooyinkaasi go'doon ugu jiraan kooxaha argagixisada. Cumar Daawud Khaliif, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bokool ee arrimaha gargaarka iyo samafalka oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in sidoo kale uu shuban biyood ka dilaacay degmada Xudur xilli ay jirto xaalad biyo la'aan ah. sidoo kale waxa uu soo jeediyay in laga hortago dhibaatooyinka inta aanay guud ahaan u sii gudbin bulshada, isagoo oona ka dalbaday xukuumadda iyo hay-adaha samafalka inay kaalin weyn ka qaataan samata bixinta qoysaskaas. si kastaba xaaladda go'doonka ee uu ku jiro gobolka Bokool ayaa 10 jirsatay iyada oo marar badan iyo ay koonfur galbeed ku baaqday wax ka qabashada xaaladaasi, waxaana sare u sii kacay dadka ku sii qulqulaya Xudur oo xilligan ku jiro dhaqdhaqaaq ugu badan. gulufka colaadeed ee dagaalyahanada Al-Shabaab ee dagaalyahanada Taliban ay kula wareegeen caasimada iyo guud ahaan gobolada dalkaasi. dalka Afghanistan ayaa waxa ay hooda ay u siinaysaa inay gacanta ay ku dhigeen inta badan qalabkii military ee Mareykanka uu siiyay ciidamada militariga dalkaasi. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay walaac xooggan ay ka muujisay hubka iyo qaabka militariga ay Taliban uga qabsadeen dagaalkii xawliga ku socday ee bishan haatan ay ku hantiyeen guulaha lama filaanka ahayd ay kula wareegeen guud ahaanba dalka Afghanistan. haddaynu eegno liiska gaadiidka dagaalka diyaaradaha iyo noocyada kala duwan ee hubka ay xooga Taliban ay qabsadeen ayaa waxa aan ka xusi karnaa A39 Super waa diyaarad fudud oo lagu talagalay hujuumka ama weerarka. qiimaha diyaaradani ayaa waxa u dhaxaysa 20 ilaa 30 milyan oo dollar. UH-60 Black Hawk waa diyaarad helicopter ah oo loo adeegsan karo duqeynta daadguraynta ciidamada iyo qalabka xamuulka. qiimaha diyaaradani ayaa waxaa lagu qiyaasay amaba lagu sheegay 5.9 milyan dollar. ururka Taliban ayaa waxa u suurta gashay in guud ahaanba dalkaasi ay xukumaan iyaga oo weliba ka codsanaya shaqaalaha dalkaasi in aysan ka bixin balse ay ka shaqeeyaan dalkooda. daawadayaal waxaa intaasi inoo dhan war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. intaan warkan mid ka kulmayno nabadgelyo.